السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داودا ميل والبو أد نغا داوانيسو كسو دواو تليح ميديا فضلان هدي أد نغو عصوب تاي سبسكرايب سارو سادو لسوعتو برنامج والبو هالكانا كسو دينا هدي أد هوري نوغو حرنينا أد أياد ugu mahadsantahay waxaanu bilaabi doonaa sheeko inoo noqon doonto tixano hadduu alla idmo sheekadaas oo magaceeda la yiraahdaa xeebtii dahabka iyo waayihii saxardiid wuxuu ahaa wiil yar oo agoon ah hooyadii iyo aabihiina isagoo aad u yar ayay dhinteen wax dhaxal ah maal iyo moodba midba uu ku noolaado uguma aysan tegin qareen iyo qaraababa wuxuu lahaa oday abti u ah odaygana waxaa la oran jiray timir wuxuu ahaa oday sabool ah magaalada ay saxardiid iyo abtigii deganaayeen waxay ku taalay badda agteeda markaa timir wuxuu ahaa kulluumaysato maalin walbana wuxuu ku kallihi jiray badda oo kalluunka ka soo ugaarsan jiray dabadeedna wuxuu geen jiray magaalada oo ku soo iibin jiray timir wuxuu lahaa haweeney iyo gabar yar waxaanu ku noolaa guri yar oo badda agteeda ah saxardiid qoyska abtigii ayuu la joogi jiray abtigiina aad ayuu saxardiid u jeclaay hase yeeshee jacaylka abtigii waxaa xumeeya haweeneyda oo qabo abtigiis haweeneydaas oo wiilka saxardiid ula dhaqmi jirtay si aanay marnaba ammaan ku lahayn haweeneydu waxay ahayd mid aad u naxariis daran waxay ku hayn jirtay wiilka xumaan aan xad lahayn hadday la hadlayso dirir iyo kuleel ayay kula hadli jirtay hadduu wax yar gaf ah sameeyana dilmo raxmad la'aan ah ayayna waxba ula hari jirin hadii goorna waxay qaba dhihi jirtay shaqo oo aanu qaba karin waxaas oo dhib iyo dilmo iyo naxariis la'aan ah aad iyo aad ayuu saxardiid u dareemi jiray oo ay calooshiisa u gubi jirtay hase yeeshee wuu u dulqaadan jiray markuu cid kale oo dulmiga oo qabo ugu cawdo waayana wuxuu u tegi jiray gabadha abtigii oo uu waxa uurkiisa gubaya ugu sheekin jiray gabadha abtigiina waxay ahayd gabar yar oo naxariis badan qalbi furan dareen wanaagsan mar alaale markay saxardiid isagoo u murugaysan iyo tiiraanyo naftiisa yara qaadi kar la'dahay oo ula yimaadana way ka baabi'in jirtay oo ay wehel suuban u noqon jirtay ilaa ay karkahaayo ka qaboojiso oo ay naftiisa farxad iyo fududaan geliso inkasta oo saxardiid ahaa markaa wiil yar oo aan weli laftiisa adkaan wax hool adagna uusan qaba karin hase ahaatee xaaska abtigii ma taxgelintaa timir ayay kula talisay in uu saxardiid shabaq u soo iibiyo oo uu ku kulluumaysto si isna geestiisa reerka ugu soo shaqeeyo saxardiid baa markii shabaqa loo soo iibiyey haddaba sidaan hore u soo sheegnay inkastoo uu ahaa wiil da'diisa aad u yar tahay wax aqoon ah oo uu kulluumaysiga u lahaa maysan jirin sinaba wuu u diidi kari waayey amarka ayadii shabaqii boona degdeg u ritay oo xaggii badda ayuu u kacay subaxii saxardiid kulluumaysiga ugu horraysay waxay ahayd subax dhulka kulul yahay dabaylina ayna jirin badduna fadhido saxardiid baa baddii wax yar siduu u eegayay markaasoo jeclaystay deganaashihii biyaha iyo hirar la'aanta ahaa ileen waa inan yare intuu iska ilooway kulluumaysigii loo soo diray ayuunbaa wuxuu ku soo dhacay dabaal shabaqii iyo maryihiiba intuu badda dhinaceeda dhigtay ayuu biyihii galay dabaashuna aad ayuu u yaqiinay oo markiiba intuu quusay ayuu hore ugu fogaaday dabadeedna ilaa intuu ka dhargaayay biyaha ku ciyaarayay markuu biyaha ka soo baxay ayuu is yidhi maryahaagii xidho waaba maryihii oo aan meeshiiba oolin talow yaabaas oo maryihii qaatay saxardiid bay talo ku caddaatay dhabannada intuu qabsaday ayuu isagoo la moodo in cirkii ku soo dhacay oo dhulkiina laga hoos iska fariistay badda agteeda cabaar markuu halkii fadhiyey isaga oo caraysan oo naclad korka ugu tuuray tuugaabaas ee maryihiisii ka xaday ayuu ugu dambayntii istaagay oo dabadeed inta wax allaala wuxuu xirto waayey shabaqii kusoo kulluumaysa layidhi isku duubay oo xaggii guriga u soo hadaafay markuu gurigii kor kaga soo baxay aayo waa baase aayadii oo oridda sii taagan hadday aragto inaanu waxba kalluun sidin qaawan yahayna intaas waxay noogu dhammaaday qaybta koowaad ee sheekadii la soco qaybta xigta iyo qaybaha dambe السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داودا ميل والبو aad naga daawanayso ku soo dhawaa xeebtii dahabka iyo waayihii saxardiid qaybteedii labaad qaybtii shal waxay noo joogtay hadday aragto inuusan waxba kalluun ah sidin oona qaawan yahay isla markiiba waxay la soo boodo ul oo bannaanka ayay ku qabsatay ayada oo rabto inaysan naf kaga tagin ayuu ilaahay u baxshay abtigiis
subaxdii dambe ayay toosisay xilli hore markaasay ku qasabtay inuu kulluumaysi tago uguna digtay inuusan farbadnaan ku soo noqon sida shalay oo kale. halkiibuu dabadeed isnaa intuu shabaqii baas dhigta u ritay xaggii badda u kacay. markii baddii uu gaaray ayuu wuxuu arkay ayadoo dabeyl weyn dhacayso oo baddii duufaan ku kacday, hirarkuna isdharbaaxayaan. dibna inuu ka cabsooday ayuu isyidhi, haddaad iminka kulluumaysi istiraahdo duufaan ayaa kula tegayso. markaasuu sug isyidhi intay kala fadhiisanayso. markaasuu dhinaceedii iska fadhiistay. carruurnimo ileen waa ciil laga weynaadee. intuu shabaqii kulluumaysiga iska ilaaway ayuu bacaadkii xilligiiba ciyaar iskaga bilaabay. aloolaxyadii bacda ka buuxay ayuu jaad walba u soo aruursaday. markaasuu jaad walba intii u quruxda badnayd ka qaatay oo daldalooliyey, dabadeedna ka sameeyey guul aad u qurux badan. gooshii baa la qurux badnaatay. kadibna waxay la noqotay inuu u geeyey gabadhi abtigii. markuu kuushii dhammeeyey oo jeebka ku ritay ayuunbuu ambaraaray oo qorraxdii eegay. waaba casirgaab. maalintii labaadna sidaas buu saxardiid isagoo aan waxbad kalluun ah sidin oo shabaqa keliya dhegta ku sitaa ku soo noqday gurigii. mar allaala markay aayadii aragtay kii oo aan waxba sidin ayay geed qaari ah ku garaacday. markaana haddaan gabadhii abtigii ka qaban qoortaba way ka jari lahayd. saxardiidna isaga oo wada bararsan oo ooynaya ayuu doc ka mid ah docihii guriga fadhiistay. gabadhii abtigiis ayaa kadib u timid oo weydiisay waxa uu dulmigii ku galabsaday. markaasuu uga sheekeeyey qisadii kuusha iyo sidii maalintii oo dhan uga lumisay samaynteedii. kuushii intay ka qaaday ayay fiirisay. markaas ayay la yaabtay samayskeedii iyo quruxdeedii. halkiibay ugu mahadnaqday oo u sheekaysay kana bi'isay xanuunkii ilowsiisana dulmigii iyo naxariis darradii hooyadeed. maalintii saddexaad ayuu saxardiid aroortii hore u kacay. shabaqii ayuu dhabarka u ritay oo ilaa iyo baddii ayuu waddada cagta saaray. ilaa iyo inta uu sii socdayna wuxuu ilaahay ka baryaayey inuuna maantana farmanaan soo noqon. maalintaa wuxuu la kulmay cirka oo aan daruuro lahayn. intuu biyihii sidaa isha u mariyey ayuu wuxuu go'aansaday in aanu maanta maryihii xeeliga ku bixin, bacaadna ku dheelin, ee uu kartidiisa dhan isugu geeyo sidoo u kalluumaysan lahaa, bal inuu ilaahayna ugu kaalmeeyo isaga oo wax sida ugu noqon lahaa guriga. dabadeedna intuu bisinka qabsaday oo uu shabaqii dacaladiisii isku aruuriyey ayuu biyihii dhex qaaday. dabadeedna dacalkii u ahayay shabaqa ayuu yara dabciyey, wuxuuna dareemay shabaqii oo aad u culus. markaasuu intuu farxay oo isyidhi walle malaha waa kalluune ee qabo, ayuu shabaqii dacalkii u ahayay gacanta ka buuxsaday. markaasoo intuu labadii lugood adkaystay oo wax alle wuxuu xoog lahaa iskugu geeyey ayuu soo dhuftay, mise shabaqii oo googo'ay ayaa gacmihiisii ku soo haray. ileen shabaquba dhagax weyn ayuu ku dhegay. war ileen masiibadu fara weyna. inankii saxardiid baa indhaha ku dul ilaabay shabaqii oo haylaamo noqday, isaga oo urku taalo iyo ciil labanka iyo gacanta isku dhegeen, xasuusanayana waxaa ciqaab iyo dulmi sugaya. xilligii ayuu fadhiistay saxardiid isaga oo murugaysan. markaasuu shabaqii is hordhigay oona isku dayay inuu hagaajiyo. dabadeedna isaga oo filayo inuu sidii ahayd ka dhigo. intaas waxaa inoogu dhammaaday qaybtii labaad ee sheekadii saxardiid. la soco qaybta xigta iyo qaybaha dambo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso. waa Taleex Media. fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saaro si aad ula socota barnaamijyada halkan aan ka soo daynaa. haddii aad horey inoola joogtayna aad ayaad ugu mahadsan tahay, siina sheergaray fiideogan. kusoo dhawaaw qaybtii saddexaad ee sheekadii xeebtii dahabka iyo waayihii saxardiid. qaybtii labaad ee sheekada waxay inoo joogtay markaasuu shabaqa is hordhigay asagoo isku dayo inuu hagaajiyo. dabadeedna isaga oo filayo inay sidai ahayd ka dhigo ayuu halkii xarkihii shabaqa kolba laba isku geeyey oo dacaladeedii qayba qayb ku hagaajiyey. intuu hawshaa ku jiray ayay maalintii ku dhammaatay, halkii oo deetana maalintii saddexaad oo isagoo faramaran soo noqday. markay aragtay islaantii isaga oo maantana waxba sidin ayay ushii ku soo booday, iyadoo qayle iyo cay iskugu dartay ayuu abtigii yimid. markuu wareystayna qayle intay kula jeesato odaygii ayay ku tiri, khayrlaawahan yari waa mid aan waxba tarayn, araggiisana ma doonayo ee waa inuu
hadda igaga baxa guriga meel aan joogana oosan soo joogsan hortaydana waa in aanan ku arag ee dhulkiisa ha u kaco meesha ku noolaanayo isaga yaqaan saxardiid wuxuu sugayay ilaa intay dhirifkii iyo qayladii dhammaanaysay markii qabowday ee aamustay ayuu intuu abtigii timir sidaa u eegay isagoo degan oo cod murugo iyo tiiraanyan leh ku hadlaaya yidhi abti waxaanu ku weydiinayaa dambidhaaf waxaana kaa rajaynayaa in aanad waxba ii murugoon iina caroon hubaal aayadee ma doonaysa inay gurigan igu aragto marka siday jecesha ayaan u yeelayaa oo berri waan iska tegayaa ilaahay baana yaqaan siduu iigu talinayo adigana abti waxaan ilaahay kaaga baryayaa in uu kaa abaal mariyo jacaylkii iyo xoolo ogaantii aad igu soo korisay intaa markuu yidhi ayuu intuu ilmadii iska tiray u dhaqaaqay xaggii qolkii yaraa ee uu seexanayay habeenkii oo dhan ayuu saxardiid jiifay isagoo aan laba indhood isku geyn waagii markuu dilaacayna qonyar intuu mugdigii habhaabtay gurigii ayuu ka baxay isagoo ah mid la ceeriyey oo la eriyey talow xaggoo aadi doonaa agoonkan yari muxuuse yeeli doonaa sidoona u noolaan doonaa halkoona ku hoyan doonaa keli ayuu noqday aanu hoy lahayn qaraabo ka naxdana lahayn cid kale oo aana ilaahay ahayn oo uu kaalmaysanayana aana jirin saxardiid halkii buu cagta saaray isagoo aana meeloo u socdo iyo meeloo ka socdo midna garanayn cadceeddii baa ku soo baxday oo dadkii baa soo toosay isagaoo nin walba halkii howshiisu amaba muraadkiisu ahayd ku ordaya saxardiidse wuu socdaa oo u socda isagoona u jeedin wax muraad ah waddo aanu too socda ahayn oo ka saayana jirin markaasay qorraxda kululaatay oo dhididkii labada dhaban ka da'ay muruqyadiisii dhaylada ahaana daalkii korka ugu soo baxay ma dareema kuleelka kamana cawdo dhibka iyo gaajada ee wuu socdaa ilaa iyo cadceeddii ee dhacda oo sharqantii yaraatay cagtii waddada maraysayna joogsatay isaguse ma joogsado gadaalna ma eego oo inuu noqdo ma doonayo horena ma eego ilaan ma yaqaana meeluu ku socdo wuu socdaa oo habeen baaba soo galay markaasaa dayixii soo baxay oo dhulkii ku fidiyey iftiinkiisii saxardiidse kama warqabo inay dharaartii dhammaatay oo habeen soo hub qaatay kamana warqabo sida wakhtiga u dhaafay wuxuu sidii ahaadaba mar uunbuu dareemay sidii oo ay dhawaaqyo kala duwan u yeerayaan oo dad aan la arkaynin soo dabayaacayaan labadii lugoodna qaadiba kar la'yahay sidii waxay dhulka ku dhegeen markaasuu istaagay oo hareerihiisii eegay oo qofna arki waayey shanqar yarna maqli waayey dab iyo gurina midna aysan ka dhoweyn magaaladii iyo dadkiiba wuu ka soo baxay bannaan isdabayaal baanu u soo baxay dayaxa iyo xidigaha korka ifaya baana wehel ugu dhow sharqan la'aanta keli ahaanta iyo habeenkiina ifka wada gaaray ayaa inankii yara ee saxardiid naftiisii baqdin gelisay intaasi waxay noogu dhammaaday sheekadii saxardiid qaybteedii 3 la soco qaybta 4 iyo qaybaha dambo